bitaale dhammaantiin degmada reer bitaale waa salaamantiin salaan kadib shacab weynaha degmada bitaale waxaan uga mahadcelinaynaa sida diiran walaalnimada iyo kalgacalka leh noo soo dhaweyseen degmada bitaale waxay runtii aad iyo aad u qiimo badan baad u soo baxdeen noo soo dhaweyseen aanan hilmaami doonin waxaan idin leenahay aad iyo aad baan marar badan ku mahadcelinaynaa waxaan idinkugu nimid safarkaygii galmudugta cusub u qorshaysnaa horaan u sheegnay oo safarkii nabadda iyo xoogaalnimada iyo xoogaal u noqoshada dhammaan reer galmudug waxaan idinla wadaagaynaa xaaladaha dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin sida waxa ka jira oo dhan baahiyaha ka jira duruufaha ka jira hadday tahay mid amni hadday tahay mid caafimaad hadday tahay mid waxbarasho hadday tahay dhammaan adeegyada bulshada ee ka jira deegaanada galmudug inaan xoogaal buuxa u noqonno si aan ku talagal iyo qorshe ugu samaysanno dhammaan deegaanada galmudug kadib waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan aanaan qiyaasi karin runtii saamaynta ay nagu leedahay oo noogu soo dhaweeyey aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waxaa mahadcelin labaad ah sida guddoomiyaha magaalada bandarqaali sheekh muxayidiin axmed cilmi uu sheegay in wakti dheer oo 2 asbuuc gaaraya nala sugayey oo aan soo dibdhacnay waa ka mahadcelinaynaa haligelina ka baxayna hawl baan haynay dan reer galmudug baan ku maqnay maslaxad reer galmudug baan ka shaqaynaynay meel ma inaan fadhin taasaad noogu dulqaadanaysaa magaalada bandarqaali magaceeda iyo muuqaalkeeda waa isleeyihiin inta iyadoo soo marnay ama aan dhahayba qabteen magaalo jeer waaweyn leh si qorshaysan loo dhisay ton badan loo sameeyey sheekh muxayidiin waxaan leeyahay wax walbuu isku yahay sheekh iyo injineer iyo guddoomiye magaaladiina magaceedii qaad waa ku mahadcelinaynaa sheekh muxayidiin welibana dadka sheekh muxayidiin oo kale ah waa dadka tusaalaha u ah galmudugta cusub waa dadka tusaalaha u ah guulaysta hore u socda waxaan rabaa inaan ugu dambayn idhaahdo sheekh muxayidiin axmed cilmi wuxuu mudan yahay gudayasho wuxuu mudan yahay abaalmarin waxaan guddoonsiinayaa haddii laa yidhaahdo bilad شهادة شرف عقلية دون معلاقي شرفية مدن مدحوين يمثل الصحة وعن حسنتي